Assalaamu calaykum kulan wanaagsan dhammaantiin daawadayaal kusoo dhawaada wararkii Soomaaliya iyo caalamka oo aad ka daawanaysaan SMN TV. Aan ku bilaabo wararkeena odayaal dhaqameedyo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Isimada iyo odayaal dhaqameedka gaaray Garowe ayaa kala matalaya beelaha Hawiye iyo Digil iyo Mirifle. Odayaal dhaqameedyada gaaray Garowe ayaa waxaa hogaaminayay Ugaas Maxamed Ugaas Cali oo matalayay beesha Abgaal gaar ahaan beelaha Mudulood. Waxaa kaloo ka mid ahaa Suldaan Warsame, Suldaan Ibraahim, Suldaan Caliyo oo matalayay beelaha Digil iyo Mirifle. Gegida garoonka diyaaradaha Garowe markay soo gaareen oday dhaqameedyada ayaa waxaa ku soo dhaweeyay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka tirsan oday dhaqameedyada Puntland gaar ahaan gobolka Nugaal, iyo Islaam Mustafa oo ka soo jeedo oday dhaqameedka gobolka Sool, iyo waxgarad iyo barofesoro iyo siyaasiyiin ka tirsan maamulka Puntland. Oday dhaqameedyada ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa waxay u tageen caasimadda Garowe inay u kurgalaan xaaladda ka taagan gobolka Sool oo muddadii ugu dambeysay ay ka socdeen dagaalo aad u tiro badan. Odayaal dhaqameedkaas ayaa waxay xuraami doonaan khasaarooyinka loo geystay gobolka Sool ayagoo kasii gudbi doono markay shir la yeeshaan odayaal dhaqameedka ku sugan Garowe una sii gudbi doona gobolka Sool, soona eegi doona xaaladaha lagula dhaqmay dadka Sool ku nool iyo duqeymada loo geystay iyo goobaha la burburiyay, iyagoo la sheegay inay kasii gudbi doonaan gobolka Sool ayna u sii gudbi doonaan Hargeysa, sida ay odayaasha caasimadda Hargeysa ku nool odayaal dhaqameedka ay ugala xaajoodaan arrinta Laascaano iyo isku soo dhaweynta. Haddaan guda galnaa xaaladda Sool waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa haraadiyay colaad bulshadii oo ka qaxday gobolka Sool iyo colaado, waxaana hadda ugu darsamay roobab. Waxaa la sheegayaa ciidanka Somaliland meeshii ay kaga sugnaayeen oo ahayd Gooja Cadde, halkaasina ay ku qabsadeen daadad fatahaadad wato iyo roob khatar ah oo go'doon geliyay dhammaan ciidankii Somaliland. Waxaana hor fadhiya ciidanka xaq u dirirka gobolka Sool ayagoo sii doonaya inay gudaha ugu galaan meesha gabaatinka ay ka dhigteen ee Gooja Cadde. Waxaa kaloo la sheegayaa isu socodkii gaadiidyada ee ka imaan jiray koonfurta Soomaaliya una gudbi jiray waqooyi in lagu xanibay Buuhoodle baabuur aad u tiro badan oo la go'doomiyay shacabka Somaliland. Naga halmaamina akhyaarta sharafta leh, subscribe-ta, like-ta, share-ka, wixii faahfaahinna commentiga noogu reeba. sida doonto sida diido nafsu haysa sawirkaaga siisanaynin biyo sodobin san ku neefle kula simaynin sikin doora bala sahli